hal urur oo daba galaa la waayay ciidankuna dhammaantii kayd la'aan buu noqday dagaalkii baa la wada galay laana waa naga badan yihiin dadku ciidankay soo dulgalayeen waa naga badnaayeen yaa tababar fiican lahaanine sidaasay iigu sheekeeyeen saraakiishii goobta ka dagaalantay halkaasay galeen oo lagu daahay dagaalku ciidamo aad u tababaran oo kuwa lagu tababaray kuwa ay soo tababartay kuwa Kooriyada waqooyi soo tababartay kuwa Soomaaliya tababartay gudaha ciidamadayadu tababareen oo aad waagaan xamaasad weyn jirtay muddo gaaban dhul weyn ku qabsaday muddo gaaban meelo yaa hakisay goday oo kale oo la jiri waayay oo taliyihii gaasku Axmed Teersa ku dhintay Allahu naxariiste iyagana gubernatorihii iyo madaxdii oo lagu laayay marka daraawiish badanna ku dhimatay runtii waa la qabtay qabri dahar si adag baa loogu dagaalamay rag badan baa ku leeday iyaguna waa ku jabeen dhagax buur sidoo kale gannad jigjiga u daray oo iyo 9 habeenii 9 maalmood baa dagaal ku socday anuu kormeer waxaan ku jiray weli nalama geynin gobolada waxaan ku dhageystay saacadda warka idaacadu markuu soo galiyay baabuurka waa inaad istaajisaa dhageysataa xagee wax marayaan meel godob jiiraan la yidhaah oo u dhaxaysa ayl iyo garoowe iyo gaal iyo jiriiban yaan marayay fiidkii 2 saac kormeer baan ahay man isteexanaysid waa inaad habeen iyo maalin wax walba shaqaysaa godob jiiraan markaan marayno yaan istaajiye baabuur baa wadanay kormeer baan ahay golaha dhexe waa la furay markaasay ku dhawaaqeen jigjiga in la qabtay jabhadu qabsatay adigu calaa kulli xaal dagaalku si degdeg ah ayuu u dhamaaday laakiin goray baa lagu daahday buurihii meesha goray yaa aad loogu daahay iyadana ciidan xog laha joogay miya ciidan xog laha joogay kaliya maaha horta meesha waan maray anigu hadda waa tigi intii Soomaaliya burbursan dhowr jeer aan tigi meesha horta waa jexjeexyo iyo buuro iyo waxa iyo kulli waan la aqoon kow waxay yiraahaan qoladii xog ogaalka ahayd anigu markaa jigjiga ma joogin iyo agaarkeeda ciidanka xoog baa loogu dagaalamay meesha dhinacaana waxaa taagnaa mingisti ciidankana waxaa soo daldalayay haysatada ay u bixiyeen Arnaafa Abata ninkii la oran jiray oo ku xigeenkiisa ahaa oo markii dambe ku dilay Asmara yaa basas ku soo daldalayay inta tababar bil iyo 2 iyo la siiyo dhinacaana Samantir baa taagnaa Allahu naxariiste waa la isku jabay ilaa kaydkii u dameeyaa la geliyay markii hameeniya maalmo la dagaalamayay oo laga saaray Kaaramarda iyo Garab Case hal urur hadduu jiri lahaa oo kayd ah oo daba gala kuma ayn istaageen meelahan halista ah oo difaac kama ayan galeen askartii laga jibiyay meesha la yiraaho jigjiga hal urur oo daba galaa la waayay ciidankuna dhammaantii kayd la'aan buu noqday dagaalkii baa la wada galay laana waa naga badan yihiin dadku ciidankay soo dulgalayeen waa naga badnaayeen yaa tababar fiican lahaanine sidaasay iigu sheekeeyeen saraakiishii goobta ka dagaalantay halkaasay galeen oo lagu daahay halkaa markii lagu daahay waa xusuustaa hameen yaa golaha dhexe la isugu yeeray waa fadhiisanay awal hadee waxaa jiray xafiiska operationka iyo madaxweynaha iyo militarigii ku koobnaa iyo wardoonkooda iyo sahankooda iyo waxooda habeenkaa waa lasu China markaa waxaa ka yimid qoryihii zuug iyo transatihii iyo wixii xogaa u fiicana waxaa la yiri saanaha Soomaalidu aad bay cilmiga markaa ugu sareysay istiraatiijiyada ciidanka ragii jannadeeni waxaa la yiri tan ma dhaqaajin weyn buuraley ma tahay madaafiicdii iyo wixii ma lagu rarayaa dameero iyo dibi koonfurtay ka dabacsan tahay ragii yaqiin ciidanka filta fadhiya hal loo geeyo waxaan qiyaastii waa 32,000 baa la yiri markaa warbixintii ha dhaqaaqeen nagiila ha qabteen nagiila 160 kilomitir baad isaaba u jirtaa hal guutaa ka xigta markaa nagiile ciidankaasi oo madaxa nin uu oday ahaaba madaxu ahay waxaa la yiri dhaqaaqo ciidankaas dhaqaaqo waayay maxaa lagu talagalay haddii 160 kaliya la gaaro iska daa in la dhaafo meesha la yiraahdo nagiile
وشاشبنا اللي قالوا أما النازلين اللي قالوا سقاشنه اسكدا يبغلي لحق هذه اللي قال لها وانا اللي قبن كري من قيستر لابو متسمين لها ciidanka goray iyo xarar korkiisa fadhiya oo ciidamada iyada hor fadhiya oo la dhaqaajin waayay inuu yiraahdo soo dhaqaaqa Cabdisaaba khatar ku jirtee hal difaac Cabdisaaba oo ila Dabrazeed iyo Naazireed iyo Aagi geeyo ciidamada oo yiraahdo ciidanka ka soo socda nagii la soo gaaro filta ka yimid difaac iyo inuu gacmaha taago yiraahdo ha soo yaan aas jooji dagaalka aan joojino oo wada hadal waxbaana golahay labadaas mid la gaar lahaa laakiin sabotaaj jirtay waxaan ku xaqiijinayaa markii jigjiga la qabtay amarkii waxaanu 3 wafdi baan ku ahayn meesha kala gaara anigu waxaan maray nugaal iyo tog dheer abdi shiraay ila socod abdi shiraay aynu darhadu way joognay waad ogeyd waa kii ka sheekeynay way la socday habeen iyo maalinba ma aanan nisanin amarka Ali Xuseen Cabdullaahi Allahu naxariistay inay hargeysa ahayd iyo inay ahayd iragaabo muxuu sanaag baaqan mid buu soo kormeeray Ahmed Maxamuud Faarax Allahu naxariisto golihii saraaha markii dambana guddiga siyaasadda galay hargeysa u maleynaya inuu kormeeray oo abaabulay amar waxaan qabnay ragii hiiraan ka bilow baay iyo bakool iyo gedo nugaal togdheer gobolada sidaa xuduudda ugu teedsan nimankii loo diray amar waxaan la siiyay nin walba marka dhamayso kormeerka dhulka la xoreeyay oo hortaada aad waxa nagu soo beegmay dhagax buuriyo jigjiga waa dhaqaajin hargeysa horta isugu tagno Axmed baa noo oday oo golihii saraac aynu aadno dhulkii la xoreeyay diyaaraduhu waa saasay u socdaan maalin ilaa gobol ka dhacayo waa kuwii kacay maya kuwoodii lix saac habeenimo yaan u malayn mise 7 saac yaan dhaqaajin maya waa ka dambeysay wadadu waa sidaas uma dheerayn 9 saac inay ahayd baan u malaynayaa diyaaradan ka cararayna intaan diyaaraduhu soo kicina waagu bariin baan jigjiga galay waa gudubnay waxaan tagnay kaaramarana waa la yidhaha buurtii waxaa hogaaminaya kulan baa la oran jiray waxaa hogaaminaya waa gaasas la isku dardaray nin la oran jiray wadan yahaa wanaagsanaa oo jalaal caare markaas korneyl buu ahaa caaraa la oran jiray waxaa la shaqaynaya markaa uu jooga oo aan ugu tagnay horta baabuurtii baa geedaha loo hosgeliyey waa buurtii waa meel hawdna ah buurna ah waxaa la shaqaynaya 2 korneyl iyo kabtan korneyl wuxuu ahaa Axmed Warsame Allahu naxariistay oo markii dambe jara noqday oo haysta qoriga da'sodon la yiraahdo qoriyaha da'sodonka la yiraahdo korneyl wuxuu ahaa jaamac green Allahu naxariistay oo qoriyaha ittifaafka madaafiicda goobta haysta Maxamed Kaahin Axmed كوزير داخلي سومالان هذانا كل مية مدحديس أو كابتن أو إسكاسين تهايستا